waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. marka kale suldaan Durre oo maantayto tacsidiisa iyo tiiraanyadiisa aynu halkaan isugu nimid xalaytana dhowr makhriboodkii ah lagu tiriyey rasaas culus lagu tiriyey asagoo ka soo baxay meel suuban meel cibaado ah soo tukaday halkaas ayada ah si xaq darro ah rasaas boobta ah madaxa loogu dhuftay. waxaanu leenahay marka ugu horeysa suldaan Rashiid suldaan Durre oo ah suldaankii guud ee beesha gaal jecel oo halkaas ku geeriyooday waxaan leenahay jannadii allaha ka waraabsho. intii la dhaawacantay oo meeshaas ku dhaawacantay isagoo dhintay mooyaane oo maanta qabrigiisii iyo meeshii u dambaysay loo wado ayagana waxaan leenahay ilaahay dhaawacii gaaray ha u fududeeyo. intaa kadib dhammaan dhaqanka Soomaaliyeed ee Jubbaland, shacabka Soomaaliyeed ee Jubbaland, qoyskii gaal jecel oo suldaanka uu ahaa, ahaaladii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka geeriyooday iyo carruurtiisa iyo dhammaanba dhaqankii gaal jecel si tiiraanya leh waan maanta ola qaybsanaynaa geeridii ku timid suldaan Durre. intaas haddaan ka baxo wuxuu ahaa nin taariikh leh, soo dhisay Jubbaland, soo dhisay ummadda Soomaaliyeed dib u heshiisiinteedii iyo wanaageedii halkaana dhaqankii noogu yimid oo ka talinayay sulbanaanta iyo nabadda iyo sidii Jubbaland dhabba hagaagsan cagta loogu saari lahaa taladeedii ay ka qiyanayd oo geerida ku timid wax yar ka hor aynu dhihi karno halkaan buu taladiisa uu ka bixinayay. aad iyo aad baan nooga xunahay arrintaas ayada ah oogana tiiraanyaysannahay. intaa haddaan ka gudbo anoo ku hadlahaya dhaqanka suuban ee Jubbaland, anoo ku hadlahaya dhaqanka reer Sabe guud ahaan iyo kaygaba waxaanu horay uga dignay horaynaa nooga hadalnay doorashada Jubbaland oo waqtigeedu dhammaaday, nabadgelyadeeda iyo qaabka geedi socodka ee ku habboon doorashada Jubbaland. waxaanu ka hadalnay dhaqanka Soomaaliyeed oo iska leh awoodda iyo sharciyadda dhisidda Jubbaland. ninkii tartamahayo oo musharax ahna uu diyaar u yahay dhaqanka Soomaaliyeed salaadiintiisa iyo garbahooda hoos imaada wixii ay soo saaraan inuu ku nasiibsado. waxaan aad iyo aad aan uga xunnahay wixii aan ka digaynay inay maanta noo muuqanahayaan. waxaanu horay uga dignay in dhabbihii Jubbaland lagu soo dhisay mar kastaba inay ka muuqanahayeen waxaan doorasho lagu tilmaami karin, ummadda Soomaaliyeedna ay ka markhaati tahay. maantana aanu raadinaynay dhabbihii arrintaas ayada ah ay ku hagaagi lahayd. intaas haddaan ka gudbo waxaa ii muuqanaya in guddiga doorashooyinka lagu tilmaamay horta marka ugu horeysa abtaadu aanu ka hadalnay inaanan qaadan karin, aanan aqoonsanayn qaabka iyo dhabbaha ay ku socdaan, inaanan aqoonsanayn. mar haddaanan aqoonsanayn wixii aanu ka hadlaynay waa waxa maanta muuqanhaya wey. oo maxay tahay gudoomiyaha guddiga doorashada ninka lagu tilmaamay oo maamulka Jubbaland uu ku tilmaamay dhaqankii ummadda Soomaaliyeed oo fadhiyo waraaqaan qaydinay. wixii aanu qaydinayna xilidoodii waa soo dhammaadeen waana gacantay taagahayaan. arrintaas ayada ah waa waxaanu baraatikadeeda leenahay, waayo aragnimadeedna aan leenahay. arrin socon haya oo idin socon hayana maaha. guddiga Jubbaland ee doorashada iyo xuduudaha
waxaanu idiin sheegaynaa ma aqoonsanin anigoo ku hadlahaya dhaqanka suuban afkiisa anoo ku hadlahaya ma aqoonsanayno. intaas haddaan ka gudbo waxaan leenahay oo xaqiiqo anu maanta aanu ka hadlaynaa dhaqanka soomaaliyeed ood ogsoontihiin maanta waxa uu ka soo qayb qaatay dowlad goboleedyada soomaaliyeed iyo federaalka intaba oo saldhig u ah qaranka soomaaliyeed in maantayto ay ayaga oo jooga oo waxay ka warhayaan ayna jirin maalin walba inay jubbaland ay ka dhacdo arrintaas ayada ah kana duwan tahay afarta dowlad goboleed oo kaleeto ee soomaaliya oo qaranka federaalka ah hoos yimaada ay ka duwan tahay arrintaas ayada ah intii danaynaysa ummadda soomaaliyeed horumarkeeda iyo midnimadeeda anaan kuna ammaanayno kuna soo dhaweynayno intii wax la qabatay qaranka soomaaliyeed oo daneeyayaasha caalamka ah dowladda federaalka ah waxaanu soo jeedinaynaa arrinkan maanta yaalla in wax laga qabto intaynan dhibaato kaleeto oo culus ayna keenin oo shacabka soomaaliyeed iyo qarankaba taabato arrintaas waxaan uga baxahayaa halkaasaan uga baxahayaa annaga oo taagan in xildhibaano inta la qorto oo wax qoraa ayna jirin oo lagala soo baxo khaanadda lagala soo baxo haddana la yidhaahdo gacanta ii taaga arrintaas ayada horeyna waan u diiday waana kaga tegey cawaaqibteedana waa og yihiin shacabka soomaaliyeed iyo dhaqanka soomaaliyeed ee reer jubbaland way ogsoon yihiin waxaa maantayto ummadda yani maaragtaaye iska horimaadkeeda iyo qaabka socodka doorashadu u hallaawahayaanna waa raadkii horeeto horey loo soo qaaday oonu leenahay maantaad saxdeen yeeli mayno arrintaas ayada dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah iyo daneeyayaasha caalamka intaba waxaanu leenahay degdeg ha loo soo gaaro meesha tan intaas haddaan ka gudbo waxaana marna qaadanaynin in dhaqanka soomaaliyeed oo tiirka ah in maalin walba indhaha laga rido in maalin walba xabad lagu tiriyo in maalin walba sabab la-aan loo qaado oo yani maaragtay loo sii qaado qabri loo sii qaado ayaga oo waktigooda uu dhammaaday haddana yani qaabka ay u dhinteen iyo qaabka loo laayay marnaba aanan ka raadhi noqon karin mas-uuliyadeeda iyo xumaanta arrintaas ayadaa ka imaaday iyo dhaawaca meeshaasi shacabka soomaaliyeed ka soo gaaray nidaamka jubbaland ka jira maantayto mas-uuliyadaas ayadaa asagaan saaraynaa waana inuu caddeeyaa ninkaasi xalayta meesha lagu diray xaldarrada lagu diray waa in meel la saaraa weeye oo maalin walba dhaqanka ummadda soomaaliyeed inta la geeyo wax ka hadlaa ayna jirin yeeli mayna arrintaas ayadaa annagoo ku hadlayna afka dhaqanka intaa haddaan ka gudubno musharaxiinta soomaaliyeed ee reer jubbaland iyo dhammaanba dhaqanka soomaaliyeed hadday u muuqato jubbaland in doorashadeedii saan ay tahay tashi weyn baa ka soo bixi doono haddaan la soo faragelinin arrintaas ayada ah mana qaadanayno waktigeeduna ma dhaafayso meesha ay ku habboonaato iyo qaabka ay noogu habboonaato yaanaan go-aankeeda qaadanaynaa annagaana iska leh